بسم الله الرحمن الرحيم. أدب ما سين على مصطفى وحن ليه دمان شعب قيمة بدن له يعاون مدرسة فردية رجع دبر بله وحن السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتنا نقولين نبغى قضاء بدوني إن كسو أفمرو برنامج كعاون هالكم سوي تاجي أراريا أيرهم مثلا إن شاء الله كل واحد شراء أنت بدل عن قوة القبصة إن أدوح براتو وحكاه رئيسا إن أدوح فهميسو وحكاه لو جوجا أما أرنتان لوسو أبابولي أما لوسو أجاسمي وقت وحمين وقت إنه فهم سناي كتب قلبي إنه يمسكح لنا يندم كي وجد لنا وحال مركزي هالبولو فرن عقريا هل كجدار قيمة بدن للغشة كينه إن شاء الله أنت كتب وقاعدين يا مركز لقاه الضيوف سيدا هراي وشة البروفيسور حمد أما بروفيسور ريالا حمد طبعا وحن كعور دارنا وحير ونصوت هني وضدا ونوحنا وقبل كلمة ما أهان وقاعدين يا مركز لقاه الضيوف ما أهان أما أري بحين أهان أنت كليه ما يشوفه حرنا تعني وأنا مسناي وما قطدر أو حمبارسن هاليو جيسيال حنطو هويوين إن بدن سو نولا أما إن بدن سو هالجميع إن يبلان قرحة ما تصوم على ذلك. أنت كتب وحن مرة بعد أسدول تاجيا لما قدر ميت كوبادو يا وحن لو ينادو قول دروي كسياسة يوم قول دروي ك قول دروي كسياسة يقول دروي كتاريخ سياسة بان يرسل تاجيا طبعا ولا صعنا أجر دمويكي أما dhibaatooyinka laga soo maleegayay buuraha Abasinia aan noqoto maqale ama aksar ala labela ama aan noqoto baxdaar iyo goojam iyo goordar dhulka yiraahdo oo ka tirsan waqooyiga Itoobiya iyo dhulka hoose oo ay dadku ku deganayeen ku shaqaytiga isku yiraahdo bari qaasatan anfarta iyo gafaadka iyo wargabaha iyo Soomaalida iyo anfarta dadkaasi dhibaatooyinka lagu hayo way uga dhargsanahay waana taariikh aad u dheer inta badan inuu ka hadalno laakiin waxa weeyaan taariikhda Soomaalida waxa lagu tilmaamay in sideed goor ay ummadda Soomaaliyeed ay jabtay in aad jabto iyo in lagu qabsado waa kala labo Soomaalida way jabtay laakiin wali lama qabsan saasaan aaminsanahay taariikhda saasay xusaysaa sideedda waxa kamid ah tii ugu dambeysay oo ah qabsashadii dhulka maanta loo yaqaano Harar waa jabkii sideedaad oo ku astan xadgudubyo lagu sameeyo bilaadan dunida guudkeeda ku nool kii ugu weynaa waa meesha maalin qura lagu dilay 9,000 oo isugu jiray haldoor iyo culimo iyo waxgarad iyo haween meesha maalin qura lagu dilay oo ah magaalada maanta Harar loo yaqaano magaalada afraad ee marka laga hadlayo ummadda Soomaaliyeed ah magaalada barakeysan qaybta afraad ka soo galayso arrintaasi waxay dihatay galaangalka ama dhibaatada ama diihaalka ama rafaadka aynu maanta u maaralaanahay si aan ku hulin lahayn taasaa dihatay waxaa taa ka sii horeysay jabkii loo oran jiray ama dhibaatooyinkii ummadda Soomaaliyeed soo maray ee loo oran jiray daacu maale dad maqasheen iyo furuqaale iyo duumaale oo ahaa xanuuno isdaba joog ah oo la sameeyay oo lagu afmeeray ama laga hortagayay kacdoonkii daraawisheed ee uu hogaaminayay Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan ilaahay naxariistiisa ka waraabiyo waana inaan wada duceyno qof walba oo astaanta Soomaaliyeed u dhintay ama ku astan وإنه الدعاء إن شاء الله راعينه سيئنه إنه نقولنا كوا واحد يدور ينكر مارك تمير اليوم أستامه هاسي أو كدروي سياسة كوا أستان وحي ولي وسير جيتين وسير ريحين إن دول كسومالية ما انتهر لغو مرمية إلالية أما دول كسومالية دكتور أما سومالية يتوبي أما كله كشنات مارك إلالية وارون قف بعداية كهلي صور أحمر وحلي راجر قف وحاجر الله أحمره إنه هذا حاجة داعية أما هو بينك شيء أما هو تاريخ الدينه ومدة الصوماليات واحد يتجد هاي صدق الطوال مركز هذا يوم إثيوبيا لمانت نيك إثيوبيا قرنية يا قرنية حتى ومدة الصوماليات صوماليا ينيك أحمر كأحد ومدحين وبيجا والله قال لي يعني قرنية يمنسى يلاقت تانا اللي هذا ماشى ما أنت لو يقانا والله ويتجيه تذكر والله الإسلام كأي أحمر مقالة الوين باتي اللي هذا وماشى اللهم قعدري حليجي أحمد قري حاسس باتي دوام برا ونيك قرنا يتعرض ويا باتي دوام برا ومجال راسي ومجال كلها تويكسو جيتي أبدا وحوها سلطان كمية سلاطينتي هذا وحوها محفوظ
ninka kule taariikhda garanaya kule meesha uu ka raadin karayaa waxaan sheegaynaa marka dhulka la boobay inagu maaha Soomaalidu maaha dadka la boobay isfidintii miniliq 1840 shirkii ka dambeeyay Berlin isfidinta la isfidiyay inagu maaha laga soo bilaabo ilaa Bashar al-Qudus oo xadka Suudaan ah ilaa iyo beesha la yiraahdo dadka Rift Valley la yiraahdo ee maanta degan webiga Omo la yiraahdo oo boqolaal qoys ah boqolaal qabiila ayaa ka mid dadkii la mooro duugay ama la barakaciyay laakiin waxa la yiraahdo geed waliba inta gurta hostal maxayna dhibayo sharaf darrada awooyaasheen dad ay ka xishoon jireen inay la hadlaan ama ay salaamaan ama ay dhugtaan iska wadaasay inay dhugtaan ama qoraansadaan dad ay ka xishoonayeen ama damiirkoodu siinay ayaynu maanta jaalanahay oo jeebkooda ku jirnaa oo aynu ku faanaynaa oo aynu suudad u xiranay taasi maxaa keenaya walaal waxa keenayo run ahaantii waxa joogin ma garan wax soo socdo ma garto taariikhdu waa qofka waxay tustaa halka uu joogo iyo halka uu ku socdo waxa ka maqan iyo halka uu maqan yihiin kaga gudba qaybta koowaad qaybta taariikhdeena ama marka laga hadlayo guuldarooyinka taariikheed maxaa maanta inagu dhacay daayarteenna maxaa ku dhacay waxa ku dhacay hanguur waxaa ku dhacay maskax guur waxaa ku dhacay aragti guur waxaa ku dhacay dhaqan guur waxaa ku dhacay dareen guur waxa inagu dhacay wax la yiraahdo milil dareenkeedu waa milmaya maalin kadib soo sii socdaa waxa laga yaabaa anigu inankayga ama inantayda halka maanta aan taagan inaysan taagna oo sida shamca u dhamaato dareenka qalbiga inuu sida shamca oo kale u dhamaado taa maxaa u sababa waxa u sababa cadowga maaha waxaa jira nacab iyo cadowga waxaa ka xun nacabka waayo oo walaalkay waa adeerka waa in adeerka ee hor socda dambiilaha aan weligii libin helin Soomaaliya waxa meel walba ka taliya degmo kasta iyo gobol kasta waa niman weligii libin raganimo kula soo baxay laakiin wuxuu ku joogaa waa magac aan jirin iyo ishaaro iyo ishaafalateyn qof kale oo uu dhabarkiisa ku wado awrkilaale ha noqdo horgale ha noqdo inkastoo magacyo badan ee reer la yaqaanaan haddana walaalayaal waxaasoo dhan waxaa igala sii daran ama aniga mararka qaarkood aan nafsadeeda weydiiyaa ummadani haddaan lala xisaabtamin ummadani haddaanan wax laga reebin ummadani haddaanan loo arag kan dhibaatada ku wada waa ayo qofka u damaqanaya horta Soomaaligu waa sumaduu leeyahay siduu u egyahay muxuu doonayaa muxuu diidayaa waa inaynu isweydiino intaa markaynu isla helno waxaan aaminsanahay arrimaha u halbowlo furan damiirkeena iyo walaaltinimadeena inaanu isu soo hilowno inaanu isu maaragtay noqono dad isbadbaadsha waxay ku xiran tahay inaynu runta isu sheegno saddex arrimood way isu maaragtay way is warabshaan waa runta runta oo sheega walaalkay walaashay adeerkayga dambiilaha oo runta u sheego labo kalsoonida iyana waxay dihataa waa is-aaminid markay run timaado kalsoonina ku xigto is-aaminid baa imanayso nin walba ninka walaalkii markuu bogiisa burcad loo marsho gabar walba markay gabadha walaasheed u aragto waxaa imanaysa inaynu hollino waxa aynu wada leenahay barnaamijkayga waan ka xumahay arrimo badan oo soo diyaarsaday waxaan doonaynaa kusoo afmeero gaajadii uu milil baday ummadda Soomaaliyeed 1800 gabagabadeed ilaa iyo horaantii 1900 ayaa waxa ay sababtay dhulka maanta loo yaqaano dooxooyinka waaweyn ee faafan dhulka Fayambiro ama dhulka maanta city loo yaqaano ee markii hore Shinii loo jiray jigjiga ilaa iyo jaarar dhulkaasi dadkii oo la jiray inay ka haayiraan oo u haajiraan bartamaha Itoobiya oo ahayd halkii markii hore ka yimaadeen marka laga hadlayo Bali ama gobolka Hadiya ama Sidaamo marka laga hadlayo oo lafteeda marka laga hadlayo dhulka maanta loo yaqaano Arsi ama loo yaqaano Juma oo imika oo ah dhulka tirsan qoomiyadda Oromiya oo Kenya afraad loo yaqaano dad badan oo Soomaaliya halka u haajiray oo dhalan rogmay oo waayigu u bedelay yani dhibaatooyin loo geystay ayaa jira dadkaasi waxa sii bahdilay oo sii baabaashay nidaamkii Haile Selassie oo ahaa ninkii ugu xumaa marka taariikhda laga hadlayo dhibaatooyinka Soomaaliya loo geystay ka mid ah haddaynu marka isweydiino Haile Selassie oo ahaa Mokonan oo la sheegay Haile Selassie inuu dhalay kuma ahaa waxay idin sheegayaa Haile Mokonan ama Ras Mokonan oo lagu tilmaamay inuu Haile Selassie abiyaha taariikhda markaynu baarnay
مكنا أفر دمر كرسي قبل يودن بيسوا فاطمة علي لورنجري أو كسر جيدا قبيل كان نورها اللي هذا الصومالية لكن ما أنت أورما شارك الله ما أنت أوروبيا كترسن أي كسر جيدا مكنا أفر دمر كرسي وحوم ما يسنقلين تاريخ لبين بارني ونصوحي لي مركلين دافوري دونا إن شاء الله وإنه وقته هيسنو مكنا ونيكا قاضي حولها Soomaalida dhibaatooyinka ugu badan gaarsiin markaan ku hadlay ama aan leeyahay waxa dhacay wax la yiraahdo hayaankaas oo ka dhacay dhulka Soomaaliyeed ee maanta lagu gumaysto laga soo bilaabo hada Hawaas ilaa iyo Mooyaala ama Gooba ama Yaabiley ninka garanayo waxa Kenya hayaanka maray baa jira oo u hayaamay ama Tanzania galay iyo gobolka loo yaqaano Mogori ninka Kenya garanaya waxaadka ku yaala Tanzania meesha loo yaqaano Moshi iyo Mogorogoro iyo Daafeete iyo dadka halka yaala ee Soomaaliyeed ee dhala rogmay waa dadkii ka soo hayaamay jabka halka aynu ka sheekeynayno jabkii Geebuguray oo ka horeeyay laba qarni ka hor jabka aynu ka hadlayno markii qabsashadii Harar ayay iyaduna daba taallaa waa jeclaan lahaa inaan in badan ka sii aan aragto laakiin xoolaha halkaa lagu dhacay oo halkaan aan ku haynay diiwaanka aynu ka soo qaadnay bugaag badan ama raadraac badan ayaa waxay gaarayaan 100,000 oo geel ah 100,000 oo lo ah iyo ari isugu jira nacaybka uu milile gaarsiiyay Soomaalida markii Harar laga faramarojiyay waxay gaadhay diihaal iyo dhibaatooyin badan oo ummadda soo gaaray qabaa'ilada doonayna xuso oo dhibaatadaas si weyn u saameysay ilaa ay marka dambe dhulka ay deganayeen xataa ay ka haajiyaan qaar ka mid ah maanta weli degan haddaad maqasheen qabiilka iyo warqur ma jiro maanta uu abaaday adduunku ma noola warjeex ma jiro waxaa jira maracaata qabiil yahado uu burmaysan uu baaba'ay qabaa'iladaasi qaarka ka haray ama raadraac uga lahay waxaa ka mid ah qabiilka maanta Tuusiga loo yaqaan Rwanda ama Burundi degan oo deganaa inta u dhaxaysa gobolka Awdal meesha maanta ay noqoto taalo ee deganaa ilaa iyo Awaas hoose dadkaasi aan ka hadlayo haddana waxa u sii dheeraa oo haddana dib bar labaad rugal celinta bay ku dhacday beelaha sida Gari Bartire Eese iyo Gada Bursi 1910 ilaa 1942 waxay ku aslan tahay afarta reer ee aan sheegay dhibaatada uu milile baday oo yaashood inay noqdaan dad inta badan lagu tilmaamay inay deegaanadoodii ka xajireen xoolahooda baaba'ay beerahoodii ba'een dabadeedna ay noqdeen wax casabood biyaha dhanaan dhinaca Jabuuti gala ama kasii saraba waxaan ku soo afmeelayaa hadalkayga mudane Rayaale aad buu mahadsan yahay dabcan halganka hore waan u sheegnay ogaadeen ama shacabka ogaadeenaya annagu haddaan ayosoor nahay walaalkay dugsi ayosoor waa isku hadaf ogaadeenaya waa la hadaf inta wasbeel baan u soconaa maxaynu u soconaa innaga waxaa budignoo dad mida iyo dal xora intaasaa budignoo haddii marka aynu raadinayna dal mida iyo dad xora ama dad mida maxay tahay ujeedadeena maxaynu doonaynaa waxaynu doonaynaa war caqliga iyo garashada fog ee laga saafay ama laga saaray nidaamka qabyaaladaysan ama cadiifadaysan ama yani xumaha lagu habay midka laga saaray haddaynu kaashayno ilaa caqliga wanaagsan ayaa hogaamiyaha fiican soo saara hogaamiyaha fiican ayaa bulshada fiican ka soo dhaxbaha intaa marka maxay ku imanayaan waxay ku imanayaan inagoo ujeedadeena iyo hadafkeena sare u qaadno xabashida marka ay mashaxaradayaan ama ay doonayaan inay isfaaniyaan waxay yiraahdaan ya inyaam shuro ingiriisiga nagaraajo arooska yaga af ingiriisna lagu sheegay yiraahdaan si caalamka looga maqlo waxaynu u baahannahay inaynu af waliba ama luqad waliba aynu ku hadalno oo aynu halgankeena ku sheegano waan ka xumahay wadamo badan oo horumaray oo caalamka maanta inuu joogno kamaynu faa'iideysan xadaarada dhex eegaagta kamaynu faa'iideysan waa inaynu ka faa'iideysana ninka Denmark kuna inuu afdhaj ku qori karo ku hadli karo dhibaatada ogaadeen iyo shacabkeena lagu hayo dhibaatada shacabka ogaadeen iyo lagu hayo waa mid soo jireenahay walaalayaal waxa kale oo doonaynaa xuso waxa la yiraahdaa halganka waa wax ku astan ama ku sidkan ama ku daaban Soomaalinimada Soomaali iyo halgan ma kala baxayaan marna ma kala maarmay sababtoo ah jugraafiga Ilaahay ina dhigay ayaa u sameysay qaab halgan taariikhda ninka garanaya anigu Soomaaliya in ay baabi'i doonto ama la qabsan doono ama la marudugi doono ama la beesha laga saari doono baqdin kama qabo
laakiin baqdi waxaan ka qabaa waxa loo yaqaano dhafoor gorarka yacni waxaa lagu duceysan jiray ama mucooyooyinkeen aanu ka maqli jirnay ilaahowna dil oo hana doorin qof nool oo doorsoon ayuu baan ka baqanaya aniga kama baqanayo laakiin in dhulka iyaga la qaato ama la qaabiyo waa kuwa qofka nool ee doorsoon waa kuwaynu garanayna dee gobolladaynu maanta ka nimid ama soomaaliya ama ha noqoto ugaadheeniya jabuuti NFD meel waliba horaan u sheegay kamana baqanayo qof kasta oo Soomaali magac sheeganayo oo madax sheegtay oo suud loo soo geliyay ma aha nin libin iyo raganimo meesha ku yimid ninkasta taariikhdiisa ah kuma soo iman wuxuu ku yimid oo garanayna maxay tahay marka ujeedadeena maxay tahay aragtideena waxa weeyaan runtaasi in la soo sheego aniga Ethiopia iyo Kenya ima soo gaari karayaan waxba igama qaadi karayaan horena waan u sheegay waan aaminsanahay taariikhdeena waxay baraysaa xabashigu inuu weligiiba aniga kaba haysiin jiro taariikhdeeda ay baraysaa ninka Kenyaatiga waynu garanaynaa ninba hadda ka horgebiyo wuxuu ma doonayna gabayg sheego waayo waxyaaba qaarkood waxay ku xasuusinayaan calooliyo iyo murugo ayay ku xasuusinayaan ma doonaya inaan xuso waxaan kusoo gunaanadayaa dadka Soomaaliyeed ma aha dad xun hore loo sheegay iminka ma aaminsan sababtoo ah hadduu qofka Soomaali xun yahay waa aniga kuuka qofka xun waayo hooyaday iyo aabahay iyo adeerkay iyo xaaskay iyo gabadheeda bulshada inta la yiraahdo waa inta maanku jeelo ama waa inta ugu qiimaha badan ayay Soomaalidu ka koobantay Soomaaligu weligii muusan helin gar weligii loo bakar qaadan qofka Soomaaliga intuu noolaa dilka ilmo Soomaali intay noolaayeen weli gar meel loo dhigay oo cadowgiisa asaga loo ku kala qaateen ma jiro maalin waliba wuxuu helaa garta lagu muusaa ama nacda lagu muuso ama nimada lagu muuso laakiin anigu waxaan aaminsanahay dhulka aan askale harada horam sheegay gacanka tojore ilaa iyo meesha loo yaqaano Burgabo ama la yiraahdo soo gunaanadaya Burgabo ama meesha loo yaqaano Kilifi ama Malindi oo Kenya maanta ka tirsan dhulkaasaan deganahay dhulkaan ninka ka talin jiray tirada inta la egle xaqana marka xadka laga hadlay aan sheegay ahmaara xad la lahaa dhinacaana ummadda Rift Valley degan oo mootiga la yiraahdo ama double sport koonfurta Ethiopia xad la lahaa ninka degan waa aniga ninka meesha deganaa waa Soomaali waa nin sariig leh waa nin sumad leh waa nin sinji leh waa nin taariikh leh waa nin sooyaal leh ma aha nin la dafiri karayo marka walaalayaal halganka shucuubta Soomaaliyeed uu badan yahay ogaadeenaya waxa weeye dhimbilaha ama dambaaburaha ayaa ninba si ugu taagan yahay dhimbilaha dabka ah ayuu ninna meel qafiif kaga taagan yahay ninna meesha ugu xumeed kaga taagan yahay shacabka ogaadeenaya laga soo bilaabo cirifka afdab iyo eerar ilaa iyo laga gaaro afdheer ama laga gaaro mooyaale iyo suuftu iyo doolo iyo dhulkaasi dhibaato ayaa ku haysata dhibaatada haysata waxa weeyaan ma ahan mid meel kale ka timid waa mid nin Soomaaliya oo la midabeeyay oo dhar loo geliyay oo tuuto loo geliyay oo qori loo dhibay oo wado walaalayaal waxaan la soconaa hadda ka hor dood inay dhaxmartay awlalaf gudaheeda oo ahayd war dhinka cadowga la socda iyo cadowga muslimin mise kan inaga cadowga la socda ayaan soo dhaweysanaa doodaasi waxaan kaga qayb galay anigu waxaan joogay South Africa 2004 bay ahayd waxaa la sheegay ama meel isku raacay ama raggii meesha joogay garka u luleen inay isku mid yihiin oo birta laga wada aslo cadowga iyo ninka cadowga kalkaalayo iyo ninka ragga lugta hayo iyo ninka rag rifka ah intaba in la laayo waxaynu aaminsanahay kale ummadda Soomaaliyeed haday hadalka professorka iyo doctorka waxa kamid ahay Soomaaliya abaal inay ku leedahay ogaadeenaya anigu horta ma aaminsani juqraafi ahaan Soomaali kala qaybiyo inuu jiro ma aaminsani abaalka marka laga hadlayana taariikhda ama halganku waa oo guuraa halganka waaniga leh wuxuu ka soconayay webiga Mansa yani meesha ahmaaray Soomaali kala qaybinaysay adi sababa ay saldhig u ahaa ummadda Soomaaliyeed halganku wuu socday hayaanba dhacay
in maanta taangiga xabashida ama kenyaanka oo Soomaaliya gudaheeda joogana ma ahan mid ayagu ay keeneen waa mid aniga aan geeyay marka inaan inagu marka hore aynu nacabka iska wareeno oo nacabku iska ilaalino oo aynu nacabka sutida u qabanno ayaa horta ka horeysa waayo godololadeena ayaa carqaladaheena dhala mar afka qalad mar waxa la yiraahdaa waa threat iyo weakness godololadeena weakness-keena wuxuu dhalaa carqalad inaanu abuurno laakiin markaynu godololo jirin meel walba la kufeeyo ama la puusho ama la hagaajiyo nacabku ama cadowgu wuxuu soo istaagayaa meel aan ku dhaweyn meesha ku dhaweyn waxay noqon kartaa meel aad ka arisan karayso laakiin marka uu calooshaada ku jiro oo uu ku jirtaada ku jiro oo walaasha uu cadow gacanta ku hayo oo kii aad ummadda ku jeclaad uu hoos joogo ee hooyada uu birtu ka aslayo ee uu aabbaha u yeerinayo halkuu marayo waxba ma qaban karaysid marka walaal waxaan u baahannahay nafteenna inaynu runta u sheegno dadka aynu halganka u wadno ama madaxda ogaadeenaya ee halganka wado hadda koorna halka waa ka xusay waa dad qiimo leh waa dad Soomaalinimadooda afkooda iyo uurkooda uu isku mid yahay waxaanu idinku codsanaynaa haddaynu dhalinyarada Soomaaliyeed nahay inay halganka halka ka wadaan anoo kaftan ku darsanayna waxaan leeyahay gogasha inoo ballaariya gogasha inoo ballaariyo insha Allah dhulka waa dhulkeennii dadku waa dadkeennii halganku waa halgankeennii hadafka iyo midnimada iyo ujeedada iyo halkaynu hiigsanayna waa mid qura marka gogasha noo ballaariya haddii la yiraahdo arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda waa inay isku xidhnaadaan insha Allah waxaan kusoo gunaanadayaa horeyna waan u sheegay maalinta hore waa la doogayay yaa la dacaroon insha Allah